عكرم سويتيز waxaad ka helaysaa macaamiiltoodu sarreyso keegu wuxuu qayb weyn ka yahay farxadda munaasabadaada waxaan meesha ka marnay nuucyada kala duwan cuntooyinka fudud fast food kuwaas oo haddii aad mar ramiso aad u xiisi doontid dalba hadda oo nagala soo xiriir ebril xalshan 63 عكرم سويتيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة أدنى لرادة وحنا كنا ولاي سويدن. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. maqal ismahan waa ogahay in la isgaar anigunan ogeyn haddana ma raba inaan ogaado yaa qaldan yaa saxan balse waxa keliya aan ogahay waxay tahay in ismahan waxa ay rabto gurigan ka socdo ismahan waxay rabto ma gurigan ka socdo waxa kasta siday ugula muuqdaan caawa dabka dhacay adigaa shiday waxaan rabtay inaad ogaato ilaa heerka la isla gaarayo shalay waxaa u baahnayd qof guriga hawshiisa kaa caawiya waa heshay haddana sidaa rabta ma noqon maadaama sidaa rabta uu noqon waayena waxaa doorbiday inaad samayso sida daran waxaas waxba kama jiraan hooyo faraxsan ismahaanaa keeni karto istar shala dumaashida ayay ahayd maantana sida waxaa tihiin laba qof oo isku faaca caawo istar iyo hooyana inay madaxaas la galaan adaa ka dambeeyey waxaa wanaagsanayd xaaska walaalkaa inaad ka xishooto caqli iyo qorsheyna u baahan tahay reerka in lagu wada wado ama lagu kala diro labadabana waa leedahay adiga waxaan rajeynayaa wax xigo intaadan falin ka hor inaad ka fiirsan doontid habeen wanaagsan ina ducaale waanadaada anada aabbaa ka fiicneed السلام عليكم هايا. عليكم السلام. ايه رسيته؟ الحمد لله في عون. عفماتك سو كما؟ في عون. لا ما هدي سو. subax wanaagsan way wanaagsan. Sata. Alxamdulillah. maanta waa natiijada baaritaanka habboon ee reerkii kale isbitaalka naadina khayr aan rajeyna. hooyo waxa ka fiicnaan lahayd inaan soo raacdo booska abu ducaalna noo istaagto ducaale allah u naxariisto laakiin aniga ma aqaano qof caasi waxaan u daba socon idinkana maad iskaga hartaan waaba iska dhammaad hooyo inaan khayr u rajeynaa fiican xirsiyo hooyo istar ma la hadashay wala hadlay wax walbana khayr ku dhamaanaya waxaa baqayr ku dhimaanaya oo jawaabtu kaliya su'aalaha gurigan u haayo waa jawaab macquul ah maalin wanaagsan jamaal ducaale cabdulla jaamac okay ifriista waxaan xaqiijinayaa inaad joogtaan dhakhtarka natiijada ma sheegi doono صاحب سلو صاحب دواء هلكم بشيني سمسان تقوي يا راس سكر ما ويلا على وقت سكر يمكن حرصة يا مانت يا وحير صحن الله وإيمانا
eber afar u dambaysa markaa waxaan baaritaan ku sameynay hidde-sidayaasha dhinaca koowaad cabdulla jaamac geedi dhanka kale habboon si loo xaqiijiyo in ay isdhaleen natiijadii ka soo baxday baaristii hidde-sidaha cabdulla jaamac geedi waxay caddaynaysaa in uusan dhalin habboon sidee ay dhihi kartaa tilmaamihii oo dhan ayay leedahay aniga waxaan ahay hooyo been leema sheegi karo ka fiirsa arrintaas doctore arrintan waa arrin culeyskeeda leh oo miisaankeeda leh serious ah marka arrin ka fiirsasho u baahan way laga raalli noqo annaga xaq waxaan u leenahay wixii soo baxo natiijada ka soo baxda meesha inaan sheegno waana ku kalsoonnahay 100% annagaana damaanadeeda qaadi doono adeer baaritaanka DNA oo meesha ugu dambaysa lagu kala bixi karo marka khalaas aan isku duceyno kaliya shakiga badnaa wuu soo dhamaaday adinkana waxaad yiri jireen inaad gabadhiin heli doontaan annagana waa idiin soo duceynayna insha allah okaadi oo fahamkan oo adigana habboon istijaaba wax walba hagaagayaan habboon maxaa la murugaysan tahay natiijada sidaa rabnay haddii noqoysa micnaheeda maaha inaan wax walba weyne waa dadaalena ilaa wax walba aan ka heleno habboon gabadhayda waxaa lagaga baahan yahay dadaalkaaga inaad labalaabtid xitaa haddii aad kuftid waa inaad kacdaa maxaa yeelay intaanu qofka kula garab taagan oo ku jecel marka marnaba ha niyad jabin قارن أرنتا ما بلو كو مجوكتو نيد غير شيك وصح هذا الكحرسي حبيبتي habboon familkaaga waa heleynaa sawir bay ahaato adigana waxaa lagaaga baahan yahay inaad dadaasho anagoo dhan garabkaaga nahay horaan waxaa loo dhahay dadaalaa wuu gaaraa waxaan idinkaaba nin haystaa reer kale maxaan ku raadiyaa ay laftirkooda u baahannahay haddaan helna waxaan noqonaynaa qoys weyn waa kuu duceeyey baariyaa tahay reerkao dhan waa ku jeceliya ilaahayna waxaan kaaga baryaa dadkao dhan inay saas kuu jeclaadaan yaa abo amiin habbo allah aqbal yaa waaye ani waa hooyo Esther soo gal ساتي هويو الحمد لله fiicana هو iga raali noqo xalay wax badan aan qaldamay caajisa dareemaye saaka xataa waa jiranay ma tudhow matagay maxaa kugu dhacay ma khani wallah saaka quraacda xataa qolka ugu jiri waa urkeeda la labo afka wax wasaari waay abshir maxaa dhacay adiga ma fahmi kartid waad yartahay waxaan u malaynayaa inaa walacday ma khani wallah xataa deer warar yar ay hayo waa lagu yaqaanaa waxaan kaa rabaa qolkaaga intaad gasho inaad iska nasato waxaad u baahatana lagu keenayaa maya hooy caadi waa hoosh waa qaban karaa maanta maya wax hoolo aad qaban karta ma jirto qolkaada gale waa ii nasane wax allaalay waxa u baahatana fadhigaagaa lagugu keenaa ma fahantaa hool hadda laguguma talagelin orod hooy ii nas haddaa aragta ismahaantina iigu wac naya ismahaan
خير الله كبير. هاي هاي hooyadaa kugu cusub hee hooy dhageysire gabadhaan istara way xanuunsan tahay maanta wixii ka dambeeyana guriga hooshiisa adigaa ka mas-uula yaa xanuun ah tartiib waadan maxaa qaynay waa beenteeda waa waxay xanuunsantahay male istar waa taas ana iga xoog badan tahay ay dhageyso adiga keliga ayaan kuu sheegayaa gabadhaan istara waa walac hadhowdinayaan ku maqlin adigoo meelaha la taagtaagan istar waa walac walaca markuu cusub yahay lama sheego afkaaga ka adkaawan ku dhan hooy been waaye ma xanuunsan istar hoosh guriga inay ka dhudhuumatale rabtaa walac wax ka jira ma lahan iga aamus ceeb u dhimi kuma dheheen waxaa walac ka og tahayna ma lahana aniga ha iga daba hadlin gurigaan hooshiisa adaa ka mas-uulahan ku dhan orod hooshaada qabsaan ku dhan gabadhaasna ha kaa nasato Hey. ka waran shaqada wax khaldan ma jiro mayme wax kasta waa okay maasha allah ka waran habboon reerkii ma isla hadeen may waa ku xumaa wallaahi anagoo dhan waxaa aaminsanay in habboon reerkeeda heshay jawaabta DNA-ga wax kasta caddeeyey hadda maxaa la sameynaa marka maxaa la sameyn lahaa raadintaa sii soconayso reerkan say isku heleen abu ducaale ilaah naxariisto aa habboon meesha tusay ayadana marka waxay bilowday inay reerkeeda raadiso marka waxay heshay reer oo magac iyo wax kasta oo isku raacsan marka laakiin DNA-ga wax kasta caddeeyey xaafaddu waa xaafadee marka towfiiq waaye kasku wacanta absatahay waa fiicana kaale la cashay cashada ugu badantay mayme waa soo casheeye shaqadii wax qabadama ka siyaasad wallaahi meel fiican wax ii maraya hadda shaqadooyinka dhan waa qaban karaa khibradda waa muhiim laakiin waxaa ka sii muhiimsan inay isfahamtaan dadka nin wax loo sheegi karin aad noqotid waa dadaala wallaahi dadka aan isla shaqeyn oo isfahansannahay hadda maanta waa keligaa shaqada qabanaya keligaa shaqeynaya waddan kula shaqeynaya kiil shaqeynaya maanta wuxuu raacay gabadh oo soo korsaday 20 sano ka hor reerkii is heleen ma isbitaalka iska heleen may isbitaalka wuxuu tagay natiijada si uu soo ogaaday inay is dhaleen in kale kadibna maxaa dhacay kadib waxaa lasoo ogaaday inay isla lahayn gabadhii reerka abo waxaa raba inaan kuu sheego idi aamin xalaa u sheegay arrintan gabadha kaala hadlooyo ma ajida aamina soo xasuusay dhimashadii ifraax laakiin waxaa raba inaan ogaado laakiin maxaa ogaanaysaa eejida aamino inay ilowda geedada ifraax waxay ku qaadatay muddo dheer aniguna sabab u ahaa adigana waxaad doonaysaa maalin kasta inaad soo xasuusid aab xaq uma limaad sababta walaashay u dhimatay inaan ogaado ilaa hadda ma ogeys sababta walaashay u dhimatay
جاجي سلامتي لا إله إلا الله ورجعنا أنا كتك ورجعنا أنا راح 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 ورجعنا 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 أنا كتك isla markii meesha hore ma ka imaanay miya ani meelan ku go'doonsanaa markii hooyadaa ii sheegtay markiiba waa aaday meeshana dagaal xunaa ka socday rasaasna way ka dhacayso anoon meeshiiba gaarin ayaa waxaa iga soo gaaray dhaawacaas caloosha iga yaal anaaba xaalad xun gala isbitaal laga qaaday sidee ku ogaateen in la dhimatay meesha ma la geli karin horta muddo bilna dagaala ka socday waxaa naloo sheegay maalintaas dad badan oo carruur ku jiraan inay meesha ku dhinteen iyadana kuwaasay ka mid ahayd waa baafinay warkeedana maana helin هاي يور أو حبون saaki ilaa hadda qolkay ku jirtaa ومحي قلبك يا ثاني waxaa la yidhi ma jirto mushkilad aysan xali karin hurdo dheer ورد دير كدبنا مشكلة ماشي كبحث على وين مياه mushkiladihii hore kuwa ka duwan ammaanaya midda horena caadi noqonin aad maxaa sameysaa markaa murugsantaa أنا لبستها مقالدي ناس كلها qof walba sigaar isku xaliya والله وصفيرنا لا عرفت واحد بدل كره nin jecel haa dhib ma laha no shame that's me أحمد وائل soo gal axmed fariiso واسطة تدري مسابون ما دام ريرك سوني جيبس nim soo neejibinin dna soo neejibiy أيوه هو إنك ولا way fiicnaan lahayd taas inay iska sii socoto أنك حما عبون نيجي بحال ده كوجير تدنا حاجة على استعاولة بدنا بدنا كسر عشان meelaha caawina banaanka aadi kara axmed sorry أنا أرى إنك أزور سلسي وأنا قاعد صورة دلت إنك أقصين كرين كلام هدي جديد دنوري موجان إنك أقصين كرين كلام مركز جديد أنا كبريان وأنا هو إنك أقصين كرين هاي soo diyaarno أوكي فدي أنكو بسوي هاي maxay ku dhahday يا أخبش intee aadeenaan أنا سألوها arrinta habboon aan murugeysanahay هو أنقر habboon wax u roon hibin u roon ما جرت مشكلة إيه سحلين كرين هو ده laba goor burdo way ay heysaan يا ويلي كرا أرد اسكت ساحة مركز
Bye Regina. Hey. haboon ka waran lacala haddii reerkaaga seshaan iyagoo 22 qof ah oo aabbaha iska soo jiro lumitaankaaga si aan u soo kabsado darteed 20 cunigaa u dhalay maxaa samayn lahayd mii dhahaysaas soo dhawaada aad u mahadsantahay qorshaha wuxuu ahaa cashada kadib in la keeno laakiin waa la soo dhaqsaday wow iga waran reerkaaga markii laga reebo hibe iyo maamada dabcan dhankayga aabbahay anigoo yar u dhintay waana qiyaasi kartaa sababtaan u raadinayn laakiin hooyo waa hooyo ma aqaan hooyo la'aan sidaan ku noolaan lahaa waa jecelkay koowaad waana saaxiib keliya dunida aan ku leeyahay muddo dheer haysmurjin adigaa weydiiyey marka hore okay ada dhankaaga intaa ka xustid reerkaaga carruurkaa weyn ma jirta ma sheegi kari okay yaraantaada maxaa ka xustaa abducaali ka hor haa maalintii aan xaafaddeena ka soo lumayay oo abducaali isoo kaxaynaya bis asima kaaga sheekiyey marka misedaa soo xusta asagaa iga sheekeeyey kadib aan soo xasuustay dharkaa wadato markaas ma xusan kartaa maya aabba ma ii sheegin sababtaa asagaaba xasuusan waayey sidaan u fahmo adiga markii wax lagaga sheekeeya lee soo xasuustaa oday cabdil reerkiisa waxba kama xasuustid maya xitaa markii maamaday habku siisay oo ay tilmaamaaga bixisay isku oyseen odaygaa si fiican u fiirisay xasuustaada waxba iskama bedel maya waxba miskay bedelin ma laga yaabaa aabbaha inuu wasiir yahay oo haddaad tv ka aragtid aad garan kartid mise laga yaabaa aabbaha inuu hadda meelaha marayo oo hadda kuu soo dhawaada aad dareemaysid aabbahaas aad ka hadlaysid aabba ducaalo waaye jacayl waalidoo dhammaystiran ogsiy sooma aniga aabbahay dagaaladii ku dhintay ayadoo laleeyahaa bixin dagaal ha aadin xaasii cunug yar ayaa barbaarin iyo garab kaa rab xilligan adag ayuu qorigiisa qaatay wuxuuna aaday dagaal aan micno weyn markaas lahayn ugu dambeyntiina waa laga soo warramay wuxuu ka tegay hooyada oo keligeed ah oo aan haysanin wax garab ah markaas laakiin hooyo ayaa waxay ii noqotay hooyo aabbo waana dareemi karaa aabbahaaga qiimaha uu kuugu fadhiyo sida caadiga markii lagu arkaayo waxaa lagu maleynaa mashalaaye sida caadiga way adagtahay inaad seshaan qofaas ku sheekatihiin dunidan laakiin haboon reerkaaga waa helaysaa waan hubaa niyaddaada khayr u sheeg intaan nool ahayn aan ku garab taagana waddo kaleba ma ii furna mahadsanid
sida mayay aruuryaad miira la soo kacay meel mahigaan jilbaha dhigay dhirtu ay magoosho manka iyo caleentii iskumay raxsoome muda 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 dhulka muud ka soo baxay muranuu dhex yaalo anaa ka macaaniyo waxaanay masciideed hadalaysu mari karin masha barwaaka muuqooda habboone marmar baan ku moodaa amase kugu matalaaye intalagaaa سفران ما فكري وفتا